بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسيجن وحنا نقولنا درسيجيني سديدات تحانيه إنه سعودي أها طلق تلمان تصالح إيو توسين waxaan aanintii hore inoo tilmaamay anigoo dee ujeeddadaan ka lahaa ahayd inaynu tuso bal taliskii keli taliska ahaa inay jireen cid dee reerkooda aan ku iman ninkaan reerkooda ku imana kartiisa ku yimaada xataa hadduu qabiilkii ninkii keli taliska ay waxay soo ahaayeen inuu haddana ka dabeecad duwanaa dadka kale. taa waxaa soo raacaysa oo ka hor imanaysa in badan oo lagu ku heshay qabyaalad oo ka waaweyn loo geliyay oo awood iyo karti ayna lahayn meel lagu fadhiisiyay qaladka ay geliyeen iyo xumaantii ay sameeyeen waqti dalka baabiisay waana bilowgii bay ahayd. markii dambe daa wixii dhacay subxaanaka allah dee waa xasuuq baa dhacay oo balaayaa dhacday oo dulmi baa dhacay oo burbur baa dhacay. waxaasoo dhan aasaaskii hore ciddii samaynaysay ashkhaasun bay ahayd cirka kama imaneen. ashkhaastii samaynaysayna waxay nooca meelaha loo dhiibo kartidooda iyo aqoontooda ku meel mareen istuskaa iyo xumaan uun ma garanaysaa yaqaanay een aqoon kala lahayn. innaga reer somaliland dadka royal modelka ah ee lagu dayan karo ee keligood iyo naftooda dhisay ee magaca samaystay ee magacoodu taariikhda galay ee aan maxaan ku dhahaa hadday dhintaan taariikhda loo qoray sababtay ku helayna tahay uun fardinimadooda iyo kartidooda aqoontooda rag aad iyo aad u badan weyn. haddaan islaada cidka magacow allah yarxamu waxa ugu horeeya maxamed ibrahim cigaal madaxweynahan imanka madaxweynaheena axmed maxamed siilaanyo cumar carte qaalib axmed xasan muuse maxaan ku idhahdaa ismaaciil cali abokor allah ambasador cawil jaamac ciyaare jaamac maxamed qaalib dee raggu waa badan yihiin rag badan oo axmed yuusuf tacaale dhammaantood iyagoo dhan bay fardimadooda iyo kartidooda iyo aqoontooda meel ku gaadhay. xagga fanaaniinta haddaynu waynu ognay gaariye hadraawi xasan gani dacar huriyo iyo rag ciidaa ka badan iyo dumarba. intaasi nin wali qofkii shaksi magac ku helay magaciisu ma baabo raggii la midka ahaa ee boosaska marba derajada la siin jiray waxaa la haya maqli maysid magacooda halkiiba ku dhinto. waayo waxa weeye dee may ahayn wax iyagu samaysteene waxay ahayd wax maldahoo dhoodhoobaho cid wadoosto wixiina markii la arkay qaladkoodii iyo xumaantoodii dee halkiibay ku hadhay. taa oo kama ay hadhin dictatorkii dhacay xumaantii uu sameeyey unbay iyaguna labiskii la xidhnaayeen mar baa la wada tuuro kabiya xaarkeed oo laysku tuuraabaa ayaa raacday. dariskii haddaba duruusii aan imanka dhalinyarada aan idiin waday waxbaa igaga hor yimi oo iga qusliya runtii. waxa weeye maalinta hore waa aniga yidhi somaliland waxay u baahan tahay wax badan in la dhifaangareeyo oo ninkii higher educationka imanka ka baxayba ayaa sheeganaya PhD tii oo kale ayaa dhalinyaronimadiina aada moodaa rag anigu daana weligay dhalinyaro waxay soo oran waayeela ayaa dhalinyaro iska dhigay oo ila soo xidhiidhay oo le ma anaga noo jeeda. ragga qaar way xisbiyeen waxay yidhahdeen ma xisbigan ucudiyo iyo jamaal baa ayaa diidan tahay oo dhalinyarada la hadlaysaa isaga subxaan allah. jamaal house bay u dhigeen marka caynkaa leeyihiin jamaalin dhalinyaro beel hore dhaafay oo aan dusha laga keenin aysa soo dhiso ragga royal modelka noqon karaa kamida weeye. waxa weeye markaa dib aysu sheegnay dhalinyarada anugu la hadlayaa waayo waxaan doonay bal dhalinyaro sida loo aqoonsan yahay caalamka. UNESCO ayaa dhalinyarada waxay ku sifaysay da-da 15 ilaa 24 oo caalamku qaatay. caalamka United Nationku wuxuu aqoonsan yahay dhalinyaro markuu ka hadlayo waa 15 jir ilaa 24 jir. waxa ka weynina waa dad waaweyn wixii 15 ka yarana waa carruur. afrikaankii dawaa habsane waxay yidhahaan warniyo anaga dhalinyaro 15 jirkayga waaba ciyaal 10 sano korsiin waxay yidhaahdeen oo iyadoo ilaa 15 jirka dhalinyaro
baragii marka konton jir ah ayaa way soo haystaa dhalinyaro oo jimaal baabay ka dhigayaan in dhalinyaro kolka waxa weeye horta definitionkan anigu aan ka hadlaya dhalinyaro waa kuwa waliba kitaa afrikaanka baynu ugu badaayo 35 jirku anigu waxaan arkaa in weyn ilaa 30 jirka ayaa aniga oran lahaa waa dhalinyaro inkastoo taa United Nationska ay tahay inaynu qaadano ilaa 24 jirka laakiin kullana wax 30 jirku inuu ma aqaan dhalinyaro runtii halka taanaan definitionka kaga baxo waxa jira bini aadamku marka shaqadu ay socoto qof walba job descriptionkiisa iyo shaqada marka la qorayo loo qoro baahi loo qabo qofka shaqadiisa qofku maalinta uu shaqada bilaabo wax uu qabanaya wax qabad buu leeyahay wuxuu leeyahay wax laga sugaayo wuxuu leeyahay wax lagu xisaabtamaayo wuxuu leeyahay performance evaluation in la sameeyo war wixii ma qabatay mise ma qaban markay baashu noqoto iska buuxin oo tiyan markay dambe aragtaan u shaqo tagay oo muddaani oo ka shaqeynaya dhowliyo in la haystay kiibaan dalku soo noqday so waan ogeey aabahay markuu dhintay dabadeed waan imi Allah yarhamu dhacdooyin badan oo cajiib aan la kulmay laakiin waxa la kulmay shaqaaleys dul buuxiyay oo waxay qabtaan garan la maalin baa waxaan tagay magaalada Muqdisho حسن حواله إلى هون حرسو ديجي كهوسارة مالية حفيز كيسيتي حفيز كانوا حسن الله فردي يا هالكي سكرتيرية دي شوي فردي دي يا بوق خدع حسن باسوق وعارم حاد ويوصل نقطة حامل كدع بحول دبات أنا هيستو ميسكي والبا أفرق بقورة مرة سوا عن يقولي بروي جيبا يعني ما شاء الله دولتي ما دان ماشي شيء بوق ما له كمرة بالهيل ما هي ما أنا بقف أي ماد وقالكي ما أنا بلغي شقين لها وبرويجي ما أنا شقية قروين مرها كوكرا إني ما أنت شقية يا أيا تدور كي أيا قداميو قف قبل كلاتي ميو ينا ما أعرف هيدني بريش شقيس هالكي بيسوايا أدبر لي يعبد يعني قف شقالة لو قرأ يقول لي هيويجي ما لهم قال تشخص عمرس continuity بحدي ما نبغى تعصب فردية ما نبغى كلام فردية شقاد الله شقص عن سامس مركا شقاد هورت مركا هو رئيس قف شقالة قرآن يسوع هدف وين لو قرآن يوين وهذا شقاد موبا هنت هاي محو قبانية محو سوق الدنيا محل جدونية محل ولا حساب تمية محين ويدينينا انت هداني تشرين او قفكي شقالة هذا قرطو كي هوري شوغينا ونية شوية مشاهركينا وسيرانيا ان انتي ريدت هيسون بضو شقالة وقيبسة بركادي waxay ku jiri lahayd shaqado inta la koobo mushahar fiican la siiyo sida aanu mushahar bari yoran qaadan jiray inta aanu ka dhoofin dalka wax walba oo ismeen jiro lacag weyn oo soo hari jirtay maana dhameyn ka jirin mushaharkay baash markaas ay qiimo leedahay oo shaqadii aad ixtiraamaysa oo adigina wax laga doonayna lagu xisaabtamayo aad garanaysa oo aanad sagsaagi kareynin todobada marka uu golo labadan uu ruuxi jiro laakiin maxaa u dambeeyay taas ay u dambeysay ayaan darada hadaba in haysa wax weeye taa dambe ayaan ku dayanaa halkeen oran lahayn wartan waa tii wax burburisay kharaabisay ee aan ka digtoonaano oo aan ku socono markii dalku haysanaa iyo markii sharaftu shaqaaluhu lahaa iyo markii qofku waliba uu hawshiisa haystay ee maldahan faraha badan ee waqti lumiska ah aan ka dayno dadka arrimaha noocaas ah تفاصيل بدن بيليه كم سوى كوبي كرو قطبت كلية وح أبوي وحيابها ما أنت إنه صحري علىها وعن شعرها ذكر ويجا قبضتي مقالة ده هرجيسة مركا لوري ستيتكي هي حال كي يخص جنايت يا مقالة ده سيدول ميل لجوا هي نبتي لجوا هي أي كلا شيء لما أنتوا ضد آن هو هين وان هين أقونتي وان خبرة ضد لهين أو وكيلها أو شق lagu shaqo galiyay qabyaalad iyo wixii ka dhashay ayaan inooga bilaabi doonaa iyo waxa maanta dalkeena taagan ee shaqaalahood haysta ee ka haysta inay nidaam ilaaliyaan inay shaqo socodsiiyaan waana arrin aan lagaga bixi kareyn hal xukuumad ayna qaban kareynin
wadajir aynu ku qaban karno sababtoo ah haddii maanta tallaabo laga qaado lagu saxaayo shaqaalaha waxaa ka imanaya waynu ognay qabaayilkii baa kacaaya xisbiyadii mucaaridkaa kacaaya wixii laakiin markaynu isla garan war waxaan sidan lagu wadi kari maayo wax ma saxnaa waynu isugu nimaadno inagoon mucaarid iyo muxaafid lahayn taasoo keliya baynu sixi karnaa kuma sixi karo marnaba dhinac keliya ma sixi karo waa arrimo u baahan heshiis iyo wadajir ya wadatashiga iyo wadajirka meelaha looga baahan yahay waa meelaha loogama baahnaa arrimo siyaasiya hebel ka kaxeeya hebel eri iyo ma loogama baahnaa wadatashi iyo maxaanku idhaahdaa wadajir iyo wax isu sheeg meelaha u baahan inayn mucaarid iyo muxaafid aynu kugasha intaynu ballaarsano aynu ka tashanaa waa waxyaabaha noocaasa bay tahay inaynu ka tashano bal mathalan maanta eg waxaad arkaysaa shaqaale nus ay dibadda joogaan ay maqan yihiin oo xafiiskii wax fadhiyaaba u yaryahay waxaa ugu wacan ka fakir waxa ugu wacan aynu gacanta isqabsanno aynu shaqaalaheena intaynu u baahnay shaqaaleysiina quality-ga leh inta kale waxay qabsan karaan waxa loo qabto hala dhiirigeliyo sidii businessya yarar ay u samaystaan haloo sameeyo funds lagu dhiirigelinayo hataa haddii mushaharka la siinayo halagu tujaarta hala yidhaahdo shaqaalaha qaadataan baanu badh mushaharkeeda ka bixinaynaa yani wax soo saaraya hala sameeyo se inaan ahaanin un dad un istul buuxiyo sidii miiskiiba 5 qof ku qora waan ogahay meelaha qaarkood inay gaadhay in miiskiiba 2 qof ku qoran yihiin dhab waan ogahay halkaasi ay noo joogto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu